munaasabadani oo si heer sare loo soo agaasmay ayaa ka qabsantay barxadda hore ee dugsiga Waaberi Secondary School ee magaalada Boorama. ujeedka munaasabadan ayaa daarnayd xafladda abaalmarinta sanad dugsiyeedka 2020-2021 ardaydii kaalmaha hore ka galay imtixaanaadkii la qaaday waxaana soo abaabulay maamulka iyo macallimiinta dugsiga Waaberi Secondary School. waxaana kala soo qayb galay xubno kamid ah waalidiinta dhalay ardayda kaalmaha hore soo galay iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. ugu horeynba waxa halkaasi ka hadlay Professor Cabdillaahi Axmed Cumar, maamulaha Waaberi Secondary School iyo xubno kamid ah macallimiinta Waaberi Secondary School. waxaan u fadhinaa inaan abaal marino ardaydii ka galay kaalmaha hore imtixaankii inoogu dambeeyay ee finalka ahaa ayaa saaka halkan laga abaal marinaya 45 arday oo kaalmaha hore galay min laga bilaabo galaaska koobaad ilaa form 4 ardayda halka ku qoran sidaad arkaysaan waalidiin waa 14 arday ee galay kaalmaha koobaad sababta aynu halka ugu xusnay waxay tahay ardayda ay mudnaan gaaray leeyihiin kaalmaha koobaad bay galeen arday kasta oo fasalka kaalinta koobaad u gala sidii ballanteenu ahayd lacagta free baa looga dhigaa fiida waa free baa looga dhigaa waxa weeyaan waa lagu dhiiri gelinayaa waa booska lagu tartamo ee waxa weeyaan sanad walba ardayda galaaska joogta ay ku tartamaan si waxa weeyaan fiida looga dhaafo oo waalidkiisii intaa isaguna kaga qayb qaato aad baan u hambalyeeynaa ardayda iyo ardayda kale ee kaalmaha labaad iyo saddexaad galay ee saaka halkan laga siinayo muxuu ahaa jawaaiska 14 arday halkan noogu sawiran sidaan sheegnay markaa lacag la'aan bay ku dhiganayaan inta teeramku dhamaanayo imtixaankii ay galeenka ku xiga marka la gaadho uunbaa haddana tartan la gelayaa ama way soo noqonayaan oo boosaskooda bay xajisanayaan ama ciidan kale oo tartan kula jira ka qaadi doona marka waxa weeyaan sidaas loogu tartamayaa halkaasi dawladda Waaberi imtixaamada nationalka ee gallo inta badan ee eydka iyo form 4 ka sanad walba ardaydeedu ay kaalmaha hore galaan ayna wada baasaan eenan alxamdulillah ilaa hadda inta iskuulku furan yahay oo imika ay ka baxayaan lodkii 8aad ee dugsiga sare oo ardaydii u horeysay hadda ka baxday waa dhaqaatiir way qalin jabiyeen qoladii imika qalin jabisay ahayd waxaan si gaar ah ugu faanaynaa hambaliyana u diraynaa ardaydii imika ka qalin jabisay jaamacadda Camuud qaybta caafimaadka ardaydii u sareysay waxay ahayd Waaberi ardaydii ka baxdo lodkii ugu horeeyay runtii taana waxa weeyaan iyagana noo hambaliyana anaguna ku faanaynaa maadaama ay ahayd halkan ay ka soo baxeen runtii arday aad u soo carbinay bay ahayd jaamacadaha markay tagaana way ka dhex muuqdaan waa ardaydii kaalmaha hore ka gashay galaasyada iyo fasallada uu ka kooban yahay iskuulku si gaar ah ardaydaas aynu ugu ducaynaynaa saaka waxaynu leenahay ilaahay ha idinku anfaco halkaa ka sii wada dadaal fiican baa taagantihiin inta kalena waxaan ku boogaadinaynaa inta iskuulku ay joogaan inay soo hiigsadaan halkaa kaalinta koobaad iyo kaalmaha u horeeya iskuulka waalidiintan waxaan leeyahay ardayda inta la joogaan idinka ayaa nooga mas'uula inta anaga la joogaana anaga ayaa idinka mas'uula marka haddaba waxaan insha Allah intaas ku soo gabagabayn doonaa waxaan si guud u hambalyeeynaa dhammaan ardayda ku guuleystay kaalmaha hore gaar ahaan ardayda ku guuleystay waxbarashada lacag la'aanta ah anaga macallimiin ahaan waxa farxadna waa guushiina waxa farxadna waa inaad noqotaan dad akhlaaqad wanaagsan oo wanaagsan ma sha Allah inta kadibna hadalka waxa ka daba qaatay qaar kamid ah waalidiinta dhalay ardayda kaalmaha hore soo galay iyagoona bogaadiyay maamulka iyo macallimiinta Waaberi Secondary School. waan idin ducaynaynaa insha Allah taala anaga waxa sharaf noo ah waalidahan inaan aragno ubadkayagii oo qurux badan oo dugsi runtii yacni waxbarashadiisu sarreyso annaguna keenay kana soo jeeda macallimiinta iyo maamulaha dugsigana waxaan leeyahay jasaakallah ubaxaad soo saaraysaan horumarka muuqda waa ubadkiinii waad ku dadaasheen waxa weey idinkana jasaakallah ilaahay sawaabka khayrka ha idinku daraan leenahay kulay anagu iskuulka waxaan kuna ka midnahay dadka markaan ku xidhiidhaystayo qofka soo loo baaday iskuul la geeyay xagga ma keenaa Waaberi iskuulka Waaberi markaa wuxuu agteeda ka yahay qiimo weyn buu ku fadhiyaa ilaahay kii jira joogay lagu anfaco Allah ka yeelo awlaadii soo saarayaana kuwa barakaysan wadanka maamula oo wanaag iyo markaa u horseedo horumar ilaahay ka yeelan leenahay gabagabadii gunaanadkii halkaasi abaalmarino waxa la gudoonsiiyay ardaydii kaalmaha hore ka soo galay imtixaanaadkii sanad dugsiyeedka 2020-2021 ee dugsiga Waaberi Secondary School. Suxufi Cisqi MMTV
magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal.